xildhibaan maxamed cabdilaahi baatuun iyo diiriye xasan faarax cagdheer iyo qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka Oodweyne oo maanta shir jiraayad ku qabtay hotel Xaraf ee magaalada Hargeysa ayaa hambalyo duco iyo dardaaran u diray madaxweynaha cusub ee la doortay ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoo dhankoodana ballan qaaday inay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee dalkan uu yeeshay. waxaan halkan tahniyad uga dirayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Saylici abkii fiicnaa ee ay isu tahniyadeeyeen gudoomiyaha mucaaradka xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaas oo ay shacabku u riyaaqeen aadna ay u soo dhaweeyeen isu tanaasulka ay sameeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga wadani uu sameeyay aad ayaan ugu hambaleynayaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan hambaleynayaa madaxweynaha cusub ee codka ku soo baxay xalaasha Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa ayaan salaan iyo hambalyo u dirayaa. ilaahay ha ka dhigo kii nabadgeliyo iyo naxariis beesha Soomaaliland ugu baaqa ee ku dhaqa ee ku wada. waxaan kaloo idin sheegayaa haddii Soomaaliland aynu nahay dee madaxweynaha ninun baa noqon lahaa Muuse Biixi Cabdi baa madaxweyne noqday. ha la soo raaco mid mucaarid ah iyo mid muxaafidaba ha la raaco. waxaanu maanta halkan hambalyo uga diraynaa madaxweynaha la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici. waxaanu leenahay hambalyo mudane madaxweyne. waxaad ilaahay kaaga baryaynaa inaad noqotid madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland gaarsiiya ictiraafkii inta badan ay Soomaaliland beesha caalamka ka dalbaysay. waxaan leeyahay hambalyo ilaahay xilka ha idin fududeeyo allana ha idin qabto ummadda Soomaaliland ilaahay si wacan ha idin soo jeediyo. haddii aanay ummadda Soomaaliland aanay waxba qaban karin maysaan ummadana Allah ha idin beerkooda ilaahay burcad ha idin mariyo. waxa aan leeyahay oo kale dadku maanta madaxweyne aduun buu ku eegayaa aduguna ummadda Soomaaliland inaad si fiican u qabato oo soo dhaqdo macaarid iyo muxaafidba ayaa maanta adigana lagaaga fadhiyaa. Axmed Saki Ibrahim Maxamuud telefishinka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa.